waxay ku taallaa Geeska Afrika. Waa waddan ku caanbaxay faqri baahsan, dagaallo sokeeye, colaad dhuleed, iyo dawlad aan degganayn. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxay leedahay qaybaha xiiso leh. Halkani waxaannu ku soo gudbin doonaa 8 xaqiiqooyin oo xiiso badan oo u gaar ah waddanka Soomaaliya. Fadlan hadduu ku soo gaaro subscribe, like, hadduu meesha la dhaho Facebook kaa soo gaaro follow iyo leegta ha ka hilmaamin. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka Afrika oo ku dhaqanka wanaagsan. Inkastoo inta badan waddamada Afrika ay ku nool yihiin dad kala jinsiyad duwan, haddana Soomaaliya waxay ka mid tahay ummadaha ugu qowmiyadaha badan qaaradda. 85 dadka dalka ayaa ka kooban yihiin qowmiyadda Soomaalida. Badanaa waxaa laga helaa waqooyiga Soomaaliya. Qowmiyadda laga tiro badan yahay waxayna ugu horeeyaan qaybta koonfureed ee dalka. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer dhulkan Afrika. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer oo ku taalla Badweynta iyo Gacanka Cadmeed. Xeebta dalku waxay ku dhisan tahay 3,025 kiiloomitir oo ah tan ugu dheer dhammaan waddamada dhulweynaha Afrika. Badweynta Hindiya, kanaalka Gaardafuu ayaa xuduud la leh dalalka dhanka bari, halka Gacanka Cadmeed uu ka jiro waqooyiga Soomaaliya. 3 Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah rajooyinka nolosha ugu hooseeya ama cimriga dadka ugu hooseeya. Cimriga ragga Soomaaliyu waa 53 sano iyo 5 bilood oo kaliya, halka dumarkana ay yihiin 56 sano iyo 6 bilood. Waddankani wuxuu ka mid yahay 10 dal ee ugu cimriga yar. Sannado dagaallo sokeeye, rabshado, dawlad la'aan ah, xasillooni la'aan, saboolnimo heerkeedu sarreeyo, cimilo qallafsan, iyo qodobo kale ayaa isbiirsaday si ay u saaraan jawi dilaa ah oo uu waddanku ku jiro, oo muwaadiniintu aad u nugul yihiin dhimashada, cudurrada faafa, iyo dambiyada rabshadaha wata. 4 burcadbadeedka Soomaalida oo sumcad xumada ku leh waddankooda. Dhowr sano burcadbadeednimada xeebaha Soomaaliya. Burcadbadeedka Soomaaliya waxay khatar weyn ku ahaayeen maraakiibta kalluumaysiga iyo kuwa xamuulka caalamiga ah. Maraakiibo badan ayaa burcadbadeedka Soomaalidu biliqaysteen, ama shaqaalihii maraakiibtaasi ayaa la haystay oo lagu sii daayay madax furasho ah. Burcadbadeedka Soomaalida ee ku lugta leh howlgalka sharci darrada ah waxay caan ku ahaayeen dabeecad xumadooda waqtiyadani dambe. Si kastaba ha ahaatee, tallaabada beesha caalamka waxay gacan ka geysatay samaynta jawi ammaan ah oo maraakiibtu maraya xeebaha Soomaaliya. 5 godka Leeskeel ee Soomaaliya caan ku tahay. Leeskeel waxaa loola jeedaa qaar ka mid ah godadka ka samaysmay meel u dhow Hargeysa, Somaliland, Soomaaliya. Leeskeel waxay ku yaal qaar ka mid ah sawirada godadka ugu qadiimsan gobolka Geeska Afrika. Waxay u badan tahay inay taariikhdeedu u dhaxaysay godkaasi 9,000 ilaa 3,000 oo sano dhalashadii Nabi Ciise kadib. Sawirada ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan oo noociisa ah Afrika. Farshaxanka dhagaxa leh ee Leeskeel waxaa ku sawiran lo'da maraya maryo xafladeed,
ayka guriga lagu dhaqdo guriga bini'aadamka iyo wixii la mida. Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah heerarka bacriminta ugu sarreeya adduunka. Celceliskii qiyaastii 6 carruur ah ayaa ku dhasha haweeney kasta gudaha Soomaaliya, taas oo ah tiro aad u weyn. Runtii dhaqanka dalka ayaa dhiirigelinaya dhalmadani. Waxaa loo arkaa inay tahay waajibaadka koowaad ee haweeneyda la qabo ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, carruur badan oo dalkooda ku nool ayaa iyaguna goor hore dhinta saboolnimo iyo tashiilaadka caafimaad ee liita ee Soomaaliya ayaa carruurta ka dhiga kuwo u nugul cudurrada badan. Nambar 7, Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah dalalka Afrika ugu hooseeya ee qaba cudurrada HIV/AIDS-ka. Inkastoo HIV/AIDS-ka uu saf ku yahay inta badan qaaradda Afrika, sanado walba gobolka uu ku dilo malaayiin qof, culayska weyn soo saara dhaqaalaha dalka. Haddana Soomaaliya ayaa ka nasiib badan arrintani. 8, guryaha Soomaalida waa kuwo udgoon. Gudaha Soomaaliya, dadku waxay inta badan u carfiyaan guryaha cuntada badan kadib ama waqtiyada gaarka ah. Marka martida ay booqanayaan guryaha dabaqaadis oo ah dhoobada cad ama dharika dhagaxa, saabuunta ayaa loo adeegsadaa sidii fooxa ama fooxa kale. Waxaa lagu dhejiyaa dhuxul kulul dabada dhexdeeda, taas oo markaa gubanayo ilaa 10 daqiiqo udug siisa dadka gurigaasi ku nool. Look at scenes like this. I think there's every reason to be complacent, optimistic, hopeful about Somalia's future.